Assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal. Iga raali noqda ma awoodo inaan idiin sheego magacayga. Sidaad ku soo aragteen qaybtii hore, noloshaydu way isbedeshay. Markii aabbahay go'aansaday inuu ku markhaati furo dilaaweyn, waxay noo soo direen rag sirdoona si ay noo ilaaliyaan. Kadib waa kii dhammaaday waqtigii ilaalada markhaatiga, lanaga kaxeeyeyna gurigayagii, aanan tagnay magaalo cusub. Ka hor intii aan raacin gaadhigii madooba, waa naxay markaan arkay qof naga soo daawanaya meel naga fog. Waxa uu saarnaa mooto weyn, garabkana waxba kaga sawirnaa. Waan ka cabsooday inaan eego isaga, shaki ayay galay. Shaqaalihii ayaan eegay, ka hor intii aanu sheegin wixii dhacay. Waxaan arkay isagoo meesha ka soconaya si degdeg ah, saarana mootadiisii. Gaadhigii ayaan kornay, hogaamiyahoodii ayaa nala socday ayaanta oo dhan. Waxaan safar ku jirnay ayaantii oo dhan anagoo istaagin. Safarku waxa uu ahaa mid daal ah. Ugu dambeyntii waxaan gaarnay magaaladii cusbayd, mana maqlin magaceeda weligay. Guriga cusub waxa uu ahaa mid annaga lanoo soo diyaariyey. Waxa uu ahaa mid lanoogu sii diyaariyey shay kasta oo aan u baahanahay. Laakiin guriga kumaan ahayn sidii kii hore. Shayga kaliya ee aan u baahnaa waqtigaa waxa uu ahaa inaan tago suuliga, kadibna aan seexdo si aan u nasto. Ayaamo kadib, wax kasta waa ay isbedeleen. Wuxuu naga dalbaday inaan bedelno magacyadayada iyo kan qoyska, iyo inaan hagaajino timahayaga. Aabbahay waxa uu helay shaqo xisaabin ah, shirkad yar oo magaalada ku taala. Anna waxaan tegay iskuul cusub. Mararka qaarkood waxaan ahaa mid khaldama, idhaahdana magacyadii hore ardayda horteeda. Dhinaca kale, Faadi waxa uu ahaa mid ilaaliyay iskuulka, isagoo dharka shacabka gashan si uu shaki u iman. Markii aan soo noqonay, waxaan arkay laba askari oo istaagsan guriga hortiisa si ay noo ilaaliyaan. Xagga kale, hogaamiyahoogu waxa uu la sheekaysanayay aabbahay. Waxaan isku dayay inaan dhageysto. Ninkii ayaa yidhi, i rumayso, wuxuu awooday inuu ka baxsado jeelka ka hor intii la xukumin. Waxay ahayd fikrad xun, laakiin waxaan awoodnay inaan fashilino qorshahoogii. Laakiin sidee caqligal ku tahay inay baxsadaan iyadoo aad loo ilaaliyo? Waad ogtahay inay saaxiibadii yihiin argagixiso. Dhulka ayay qodayeen ayaamihii la soo dhaafay si ay u soo gaadhaan meeshii uu ku jiray, ayna uga saaraan halka. Nasiib wanaag, mid ka mid ah askartii ayaa ka maqlay guux dhulka hoostiisa, uuna na soo gaadhsiiyey. Markii aan maqalnay taa, waxaan helnay godkii. Waxaan qabanay mid ka mid ah saaxiibadii, xagga kuwii kalena ay ka baxsadeen gacmaheena. Taasi waa khatar. Wax kasta oo sameynayaan hogaamiyahooga awgeed. Sidaa darteed ayaan markasta idinku digaynaa. Arrinku wuu ka khatar badan yahay sidaad u malaynayso. Magaalada ayay gubi doonaan hogaamiyahooga awgeed. Haddii arrinku sidan sii ahaado, halkaygii ayaan ku aamusay. Maxay ka hadlayeen? Hogaamiye, saaxiibo, jeelka oo laga baxsaday. Maxaadna gelisay aabe? Hadalkii ayuu dhammaystay. Kadib markii uu fashilmay qorshahoogii, xal kaliya ayay haystaan. Kaliya inay dilaan ninkii dilka daawanayay, waana adiga. Sababta ayaan u soo badinay ilaalada. Waxaan idin keenay laba askari si ay u ilaaliyaan guriga. Ilaahayow, goorma weyn waqtiga maxkamaddu? Lama geyn weli. Waxaa jira xukumo badan oo ka horeeya, ka hor intaan la xadidin ayaanta. Waana maxkamado weyn sidaad aragto. Maalintii xigtay, hogaamiyihii ayaa saddexdeeda noo yeedhay. Wuxuuna noo sheegay inuu jiro go'aan cusubi, kaas oo ah inay dadkiina garanayay noo maleeyaan inaan dhimanay. Waa inaan jirnaa dhammaan la xidhiidhkoodii, aanan la hadlin mar kale, hadday ahaayeen saaxiibo, jaar ama qaraabo. Hogaamiyihii ayaa noo dhiibay jaraa'idyo. Markaan akhriyay waan naxay. Waxaa ku qornaa inaan saddexdeedu ku dhimanay shil gaadhi, ayna xaqiijisay askartu. Waxa ugu daran inay saaxiibaday u malaynayaan inaan dhintay. Waxaana dhammaaday janaasadii oo ay ka soo qayb galeen saaxiibaday, jaarkayga iyo qayb ka mid ah qaraabadaydii. Waxay isticmaaleen jir beena si ay u aasaan. Sidoo kale waxay soo kaxaysteen gaadhigii aabbahay si ay uga dhigaan shil dhacay. Shay kastaba si fiican ayay u qorsheeyeen. Xiisad iyo dagaal ayaa ka dhexeeyay labadayda waalid. Hooyaday may oggolayn arrinka, waxayna ahayd mid ka dalbata aabbahay inuu xal keeno si aan ugu noqono gurigaygii hore. Hooyaday way nacday ku noolaanshiyaha magaaladan cusub. Keligeed bay ahayd, cidna may garanayn. Laakiin waxaan Ilaahay ku mahadinayaa inaan haysan awoowe iyo macooyo. Sababtoo ah kumay noolaan karayn beentaan. Khiyaar ma haysan, kaliya inaan bilaabo nolol cusub. Waxaan samaystay asxaab. Anigoo la sheekaysanaya mid iyaga ka mid ah, ayaa waxa uu weydiiyey magaaladii aan ka imiday iyo noloshaydii hore. Laakiin been ayaan u sheegay.
waxaana sheegay inuu aabahay shaqo ka helay magaaladan, sababtaan aanu imanay halkan. Su'aalo ayuu sii weydiiyey, anna been ayaan ugu jawaabay. Waan xamili waayey, waxaanan go'aansaday inaan runta u sheego. Ka hor intii aan kelmad odhan, hooyadii ayaa soo gashay, waxayna noo keentay shaah. Deganaan ayaan muujiyey. Bil ayaa kasoo wareegatay markii aan halkan imanay, waxaanan awooday inaan galo akoonkaygii hore ee social media ku lahaa, si aan u arko xaaladda saaxiibaday iyo sida ay noqotay noloshoodii kadib markii ay maqleen geerideyda. Anigoo isqarinaya ayaan akoon kale ka galay. Wax naxdin leh ayaan arkay. Waxay ahaayeen qoraallo ula socda sawirro aniga iyo saaxiibaday, waxayna nooleynayeen ayaantii dhimashadayda. Waxayna u ekeyd inay noloshoodii isbedeshay ayaantaa wixii ka dambeeyey. Waxayna iigu ducaynayeen raxmad iyo dembi dhaaf. Waan awoodi kari waayey arrinkan. Oohin ayaan kala joojin waayey. Lilmadii ayaan iska masaxay, waxaanan go'aansaday inaan magaaladii ku noqdo. Aanan bannaanka soo dhigo beentan. Wixii dhacay way dhaceen. Inaan ku noolaano halkan anagoo cabsanayna nolosha oo dhan. Waxaan isku diyaarinayay noloshii hore. Guriga ayaan ka soo baxay, waxaana soo gaarnay aniga iyo Faadi gurigii cusbaa. Markaan soo gaarnay, wuu naxay Faadi, wuxuuna yidhi, wax cusub, halkay tageen labadii askari? Waxaa laga yaabaa inay guriga galeen. Jawigu aad ayuu qabow yahay maanta. Gaadhiga ayaan ka soo baxnay. Markii aan soo gaarnay albaabka, waxaan aragnay isagoo jajaban. Faadi waxa uu qabsaday baaskooladiisii. Guriga ayaan dhinac u galnay, waxaanan aragnay filan waa. Guriga waxa uu ahaa mid burburay, ayna ka buuxaan godadkii rasaastu. Arrinku waxa uu ahaa mid cusub. Faadi ayaa igu yidhi, dhageyso, qof ayaa gudaha ku jira. Cod ayaa ka soo baxayay madbaxa. Si degdeg ah ayaan u dhaqaaqnay. Ugu dambeyntii markii aan soo galnay, Faadi ayaa ku qayliyey, istaag, askar weeyaan. Hadalkii muu dhammayn, waxa uu codka ka soo baxayay laba qof oo ku jiray madbaxa dhexdiisa. Aad ayaan u qayliyey waana ooyayay. Maya, ma dhacayso. Aad ayaan u naxsanaa. Waxaa si degdeg ah u soo istaagay guriga hortiisa gaadhi madow. Faadi ayaa igu yidhi, si degdeg ah isoo raac fadlan. Waan dhimanaynaa haddii aan halkan sii joogno, laakiin ma awoodna inaan badbaadino iyaga. Iga raali noqo, isoo raac fadlan. Waan raacay anigoo ooyaya. Maanan istaajin oohintii. Faadi daaqadda ayuu eegay, si uu u eego gaadhigan madow ee istaagsan guriga hortiisa. Darawalku si fiican ayuu u daawanayay guriga. Faadi baaskooladiisa ayuu qaatay, wuxuuna u socday xagga albaabka. Halkaa ayay ku dhammaatay qaybta labaad ee qisada. Maxaa ku dhacay guriga? Ayaana soo weeraray. Yaana ku dhex jiray gaadhigan madow. Waxaasoo dhan waxaa ku daawan doontaan qaybta soo socota ee sheekada. Haddii aad rabto qaybta saddexaad ee sheekada, like saar fiidiyoga, commentigana nagula wadaag wixii aad filayso. Qaybta xigta ayaan is arki doonaa. Fii amaanillah.